shirkii 12aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa fadhigaasi maanta lagaga dooday laba xeer oo kala ah xeerka howlgabka iyo waliba xaqsiinta ciidamada iyo waliba xeerka wax ka bedelka iyo waliba kaabista ee xeerka ismaamulka gobolada. falanqayn iyo dood kadib madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacantaaga geliyay golaha wasiirada Soomaaliland si loo ansixiyo labadaas xeer waxaana codaynta u dhacday sida tan. xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ogolayeen saa ku gudbina gacanta taag dejiya inta yaa diidan yaa ka aamusay saasuu ku ansaxay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 32202 inaynu sidaa kusii dayno inta ogol gacanta ha taagto dejiya yaa diidan yaa ka aamusay saasuu ku ansaxay. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.